xulka kubadda cagta ee qaranka Norway ayaa markii ugu horeysay muddo 26 sano ah waxa ay u soo gudbeen in ay ka ciyaaraan koobka adduunka oo lagu qaban doono xagaaga soo socda wadankaasi Mareykanka. Norway ayaa koobka adduunka ee kubadda cagta oo ay ka qayb gasho waxa ugu dambeysay sanadkii 1998 oo lagu qabtay wadanka Faransiiska. Norway ayaa dadaal badan koobkan waxa ay ka muujisay ciyaarihii isla reebka ahaa waxa ayna u soo baxday koobka adduunka sanadkan iyada oo aanan laga badin. Xulka qaranka Norway ayaa ciyaartii ugu dambeysay waxa ay ku ciyaarayeen garoonka caanka ah ee San Siro ee ku yaala magaalada Milano ee dalkaasi Talyaaniga. kulankan oo ahaa mid aad u adag oo ay la lahaayeen xulka kubadda cagta qaranka wadankaasi Talyaaniga ee koobka adduunka dhowr jeer oo hore haystay ayaa waxa uu ka dhacay garoonkaasi iyadoo ay dhexmartay ciyaar aad u adag xulalka Norway iyo Italia oo caan ku ah kubadda cagta. Hayeeshee ciyaarta ayaa waxa ay ku soo dhamaatay 4-1 ay guusha ku raacday xulka qaranka Norway taa oo ka dhigtay in ay kaalinta koowaad ee groupkooda kaga soo baxaan isla reebkii koobka adduunka ee groupkii qaaradda Yurub ay kaga jirtay. Talyaaniga ayaa guul darro culus kala kulmay Norway waxaana ciyaarta bilowgeedii 1-0 ku hogaaminayay xulka qaranka Talyaaniga. Hayeeshee Norway ayaa si afarley ah ku soo laabatay waxa ayna ciyaarta ku guuleysatay 4-0 taa oo ka dhigtay in uu xulkeedu noqdo kan ka soo baxay groupkaas una soo gudbay weliba si toos ah koobka adduunka ee xagaaga soo socota lagu qaban doono cariga Mareykanka. Norway ayaa 2 gool oo kamida kulankaasi waxa uu dhaliyay xidigooda goolalinta caanka ku ah ee Erling Haaland ayaa ah xidig u ciyaara kooxda Manchester City ee wadankaasi Ingiriiska waxa uuna kamid yahay xidigaha ugu goolalinta badan adduunka waxa uuna u suura galiyay xulkiisa qaranka Norway in uu soo saaro koobka adduunka ee xagaaga soo socda ka dhici doona Mareykanka. Haaland ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in xulkiisa uu soo baxo isaga oo kabtan ah hogaaminayana xidigahooda. waxa uuna intaa ku daray in ay filawa ku tahay in garoonkan San Siro ee xulka qaranka Talyaaniga caanka ku yahay ay oga badiyaan waliba natiijo 4-1 ah. waxa uuna guusha ku tilmaamay mid taariikhi ah taa oo Norway ka dhigtay 26 sano kadib in ay si toos ah oo aan leexleexad lahayn waliba iyadoo aan laga badin ugu soo gudubta koobka adduunka. Haaland ayaa waxa uu isreebreebka qaaradda Yurub ku hogaaminaya 16 gool isaga oo ah xidiga ugu gool dhalinta badan isla reebka koobka adduunka. Haaland ayaa waxa lagu xasuustaa in kooxda Manchester City uu u dhaliyay goolasha ugu badan isaga oo sidoo kalena u qaaday horyaalka wadankaasi Ingiriiska iyo waliba horyaalka qaaradda Yurub. Haaland ayaa waxa uu kamid yahay xidigaha lagu tashanayo koobka adduunka in ay ku soo bandhigaan ciyaar mucjiso ah iyo waliba in uu ka dhaliyo goolal badan maadaama 25 jirkan uu hadda yahay xidiga ugu gool dhalinta badan adduunka. haddaba waxaynu leenahay haddaynu nahay bahda Somali Voice in Norway hambalyo xulka qaranka Norway usoo gudbida ay usoo gudbeen isuna keeneen koobka adduunka ee xagaaga soo socda Mareykanka ka dhici doono. halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana warka kiisa ugu door koron idin la socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.